ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaynu barro inuu kaadida iyo saxarada meel gaara la tago. marka hore aynu dhallo ma yaqaano kaadi iyo saxaradu inay waqti leeyihiin iyo in meel gaara lala tago toona ma yaqaan. soo samaha xafaayad baynu isaga xidhnaa bambaro aynu rabno inuu ilaaliyaan. bambarkaasi markay hooyadu ka furayso maxay samaysaa? dumarkaa inta badan yaqaana, raggu ma yaqaano. saxiga maaha. aduu wuxun baa tidhaa nawaa ka nagaga kaajiye guriga naga qabo. marka hore xafaayad baa loo xidhaa, wakti ma leh. markuu doonana wuu kaajaa, markuu doonana wuu saxaroodaa. hadhow baashani lacag bay joogtaa, waxaad rabtaa inaad ka furto. islaantu markay ka furto waxaa laga yaabaa usbuuca hore ama 3-4 cashe ugu horeeya saacad bay u fadhiso. saacad markuu joogaba mee baydhmaankii baa la yidhaha tunjiga soo si fadhiso. markaasaa la qasbaa, markaasuu kaaji waayaa, markaasuu markaajaa. saacad kasta waa la ilaalinaya. iyuu guriga gelina eega wata xafaayad ma sito, waa la raacada. xaafadda dadka joogo dhami sida xoolahay kaa yar u ilaaliyaan. cabaar marka la wado maalmuu la dhuuntaa, marmar buu kursiga kaga kaajaa, marmar buu halkan waa loo dulqaataa, waa la wadaa. maalmaha dambe wuu soo bataa, 3 saacadoodba mar baa la wadaa. maalmaha dambe wuxuu bartaa in waqti la kaaja ay jirto. laakiin waa carruura weli lama qabsan, wuu ilaabaa. markay ka daadanayso ku odhanaya kaada heesa kaada orad musqusha galo. maalmaha ku xigtana meeshuu kusii kaajaa, maradu iskaga sii kaajaa. waayo weli maskaxdiisu lamay qabsanin last minute-ka inuu kuu sheego. akhiiran sidaa ugu wadno waxaynu gaadhsiinaa 10 casho, dhowr iyo 10 casho, ugu badnaan bil markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaajaa jirto, meel lagu kaajo gaar ay jirto, guriga intiisa kalena aan lagu kaajin. inta ama wacdaynu ugu sheegnaa mise farsamaynu ku baraa. ka warran haddaynu ka yarna idhaan waryaa dhegayso, guriga laguma kaajo, halkan guri baa la yidhaahdaa, xaggaana musqul baa la yidhaahdaa. miyay saasi soconaysaa? waa qosasheen. noloshoo dhammi markaa tarbiya haddaad maqasho waa tacwiid, waa qof la tareengareeyey. qofkan waxaa loo tareengaraynayaa inuu maxay sidaa noqdo. ka soo qabo ilmaha waxaynu barraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku tareengaraynaa. waxaynu ku tareengaraynaa cunnada. hooyadu waxa fiican markuu yidhaahdaba naaska lama siiyo. naasku waa inuu waqti yeeshaa. markuu yaryay maalan aad u yaryay waxaa laga yaabaa saacad 2 saacadoodba mar in naaska la oojiyo. wax badanna nuugi maayo, waqtiyo badanna waa la siiyaa. markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla beddelayaan. ilaahay baa ugu talagalay. wax laaliya waxaad daasad siisaan waa poison. ma jirto daasad dhakhtareed oo ilmo la siiyaa. all of them waa poison. hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo. laakiin shirikaadka waaweyn ee dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan. maaha war mustafa sheegayo, khubaradooda caynkaa leh. wax uga fiican naaska hooye ma jiro ilmeed. ilaahay naaskaasi uu siiyey ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya. maalinta lagu bilaabayo waxaynu dhahnaa waa dambar. dambarku waa maxay? waa chemical loogu talagalay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo, safeeyo. marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu talagalay. ilaa iyo marka dambe laga gurinayana waa caano adag, waa dhaqayo. geela raggii maali jiray dhaqayo geeliyo miya isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha. intaa u dhaxaysa caanu way isbedelaan. mar kasta kimikalada nooc baa ku badan, vitaminada nooc baa ku badan, brotiiniska jaad baa ku badan, ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo. okay, ilmaha naaska marka loo bilaabo yar baa loo siiyaa. markuu korona waa inaad dabdiga bartaa. markuu yidhaahdaba in la siiyo maaha. hadhow ilaa laga gaadhayo marka laga daynayo saacaduhu way koraan. waxaynu cunnadaynu barraa. soomaalidu inta badan mooyi ma cunnaday laxajeclo ka qabaano ayuu daadinin iyo waxaasaa laga yaabaa. gaalada maaragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxbaba cuni karayn loo dhiibaa. beleed yar iyo malqaad loo dhiibaa. markaasuu halka ku daade halka. waxay rabaan inay hore u traingareeyaan. dabeetna traininkaa markuu ka baxo
waxa laga yaabaa 2 jir maalintu gaadho ama 3 jir maalintu gaadho cunadiisa isaga cuna innagana 4 jir islaan afka kaga guraysaa baad arkaysaa ama 5 jir soo fadhiso way halkan waa si qaldan ilmuhu intuu yar yahay inuu u train gareynaa inuu barto al-i'timaad ala nafs qofku inuu isagu isku filaan karaad rabtaa inaad barto siduu isugu filaanayana maalinba shay baad trainingkiisa bilaabaysaa haddaad kaadi ka deynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunnadana inuu isagu barto sida loo cuno maalmaha hore malqacadu kolba dhanbay afka ka maraysaa halkuu isku daadinayaa iminka miya gacantaadii afkaaga la daydayda may wala train gareeyay trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaa isku haysiyo haddaad af kala haysatona mirna miyaad la waayaysaa afka laakiin ilmuhu markuu yari uu la waayaa trainingka markuu muddo wado al-i'timaad ala nafsi buu bartaa inagu waa sabir daranna ilma markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo idhaa barstaag xadhiga u xidha islaanta u xidhxidha haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh isagaa loo sheegaya u xidhanaya maalmaha hore nus saac bay qaadanaysaa inuu dharka xidhaa meeshan yar ay geeyaan habarta joogtaa ka furi mayso waxa dhan halka istaag fur kaba horta iska bixi oo bixinaya halkaas isaga saaraya sharaba halkan saar kan bixi halkan saar waxa la barayaa qofka kan inuu ismaamuli karo wala caawin kara laha markiiba daqiiqad baa lagu caawiyo sameyn kara laakiin waxa loo train gareynayaa maxay inuu barto الكريمة في بيتك bishaaro wishay haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku